qaar ka mid ah waayeelka waxgaradka cuqaasha iyo salaadiinta beelaha gobolka Sanaag iyo waliba mulkiilayaasha beeyada oo shir jaraa'id si wada jir ah u qabtay maanta ayaa waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen inay horumarkooda iyo ka beeyada gobolka Sanaag hor taagan tahay isla markaana ay culays saartay shirkadda ganacsiga xabkaha iyo faleenka ee Asli Maydi taas oo ay sheegeen inay xukuumaddu ka xayirtay mashaariicdii horumarineed ee ay gobolka Sanaag ka fulinaysay isla markaana u xidhay shirkado gaar ah oo gobolka Sanaag ka soo jeedin iyagoo amuurahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ah waxaanu halka isugu nimi beelaha gobolka Sanaag beel naga maqan oo reer Sanaagi ma jirto halka waxa ku dhan dadkii xijiga lahaa waxay dadkanu aad uga cabanayaan oo uga hadlayaan horumarkoodii baa dawladdu isu taagtay wax allaale in dadka wax loo qabto hadii ilyar uu biriqdo ishaas waxaad moodaa in la baqtiinayo halka waxa ka shaqeysa shirkadda la yiraahdo Asli Maydi waa shirkadda qura ee ganacsata ee iibsata faleenka wax kaloo shirkado oo magaalada jooga oo dadka wax ka iibsada ma jiraan shirkado aan jirin baa lagu xanibaya waxaan codsanaynaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ka codsanayna in hawshaas faraal laga qaado gobolka Sanaag horta beeyada usaga ka baxdaa Soomaaliland beeyada usaga ku hodana gobolada kale alle berberaan u wadaaba xoga ka baxa waxaan u leenahay madaxweyne waa anigu intaan xukuumadii Siraayo ka degay rag baa oran jiray aan beeyaba lahayn oo heer Hargeysa marka Muuse qabsado baan Sanaag cuna qabatayna oo beeyadooda sheegta waxaan ragga beeyada sheegta ee heer Hargeysa beeyadu Sanaag bas kale shirkadda Asli Maydina waa heer Sanaag shirkadda laga qaado cuna qabataynta waxaan leenahay anagu wixii horumarina waan doonina ismana hayno waa shirkadii aan wax uga baranay oo baan anagu ka haynayna dalkana wixii aan u aragnay wax qabad u haya waanu soo dhaweynayna waxaan u sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka hore ilaahay laga boqo madaxweynaha waxaan ku leenahay beeyadii waxa qaatay dad aan lahayn oo gobolka oo u dhashay magaalada madaxda waxaan leenahay anagu waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda Asli Maydi oo ka dhalatay gobolka Sanaag waxaan leenahay cidii ka hor timaada waxtarka gobolka Sanaag waxaan leenahay dhinac baan uga soo wada jeersanaa dawladda taageeraan ka rabnaa kama rabno in dadka lagu tunto waxaanu leenahay shirkado kale ma jiraan Asli Maydi ahayn Asli Maydina waa gobol Sanaag xijiguna gobol Sanaag buu ka baxaa xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa dinaga dabar ku xirka dadka kale baas nimanka beeyada qashqashinaya madaxweyne hanala ka joojiyo madaxweyne hadii khilaaf lagu sheegay khilaaf ka jiraas gobolka Sanaag oo beeyada ay ma jiro waa laga heshiiyay shirkadda Asli gobolka raba shirkad kale oo aan ka aqbalayna oo aqbalayna ma jirtoba madaxweynaana waxaan leeyahay beeyada dadkii lahaana waa anaga dadka ka ganacsadaana waa anaga kuwa ka shaqeeyana waa anaga kuwa dhoofiyana waa anaga dadkiina hadaba naga yara qabo kulmiye hore anagoo runtii waxba ka garan weynay isniiskaga Asli Maydi baa naga rugtay oo tiri war soo bayro oo madaxweyne Muuse bixi doorta tiina tiriba marka waxaan leeyahay madaxweynaha ka qaado culayska shirkadda Asli Maydi ويوندس الشيخ أحمد Universal TV Airgabo